mudnayaasha aqalka golaha guurtida ee Somaliland ayaa doodooda maanta ku ansixiyay xeerka doorashooyinka qaran iyo codbixiyayaasha. Xamse Dabaare ayaa warkan inoo soo diray. dhawaan ayay ahayd markii ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland xeerka doorashooyinka qaranka iyo codbixiyayaasha kaasi oo lagu warsugayay in loo gudbiyo golaha guurtida Somaliland. Kalfadhigan ay maanta yeesheen golaha guurtida Somaliland ayaa lagu ansixinayay xeerka doorashooyinka qaranka iyo codbixiyayaasha. waxaana kalfadhigan shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha guurtida Somaliland Saciid Jaamac Cabdi. waxaana xildhibaanada golahaasi badiba ka soo xaadiray 53 xildhibaan halka laba xildhibaan ay diideen ansixinta xeerkaasi. xildhibaan Axmed Waabari oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Sawdal ayaa fadhigaasi dibadda uga baxay. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha guurtida Somaliland ayaa ku dhawaaqay natiijada ansixinta xeerkaasi. waxa ogolaaday xeerka in sidiisa lagu sii daayo 49 mudane waxa diiday 2 mudane waxa ka aamusay 1 mudane gudoomiyuhu ma coday xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lama 91 sidaas oo ku soo dhamaaday ansixinta xeerkaasi waxa afaafka hore warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo horjeestay ansixinta xeerkaasi. doodda in la qaadan duuniyaan oo afkarta laga kala yahay halka ka ilaaho inta ban ka raaqay inta ayaan ka raaqay hadii la idina doodayna hadii la idina ha baxeen doodda la yaqulu way ka badan codkooda la lahayn ya doodda ay xaq weeyaan inuu ninkaas doodo waa waajib marka taas ka raaqay heerka inta kale ma diidanay inta kale waa caadi food kale ma diidanay ya laakiin saddexda ka maqan awdal ee la leeyahay madaxweynaha awdal ah ya saddexda ka maqan ma diidanay inta saddexda maqan iyo toban line qoom baa ga wareejin kara wax kale ga wareejin kara tujoo baaro arka waxa Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.